الصلاة والسلام على رسول الله. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الأحبة، waxaynu sodhan doonaa kelimaad kooban in sha allahu tacaala oo ku saabsiisan nolosha tan miisaanka alla u dhigay subxaanahu wa tacaala in lagu qiimeeyo. laqad arsalnaa rusulana bilbayinaati waanzalnaa macahum alkitaaba waalmiisaan. rabbi wuxuuna leeyahay subxaanahu wa tacaala, rusul baan soo diray iyagoo bayinaad wata, caddaymo wixii caddaynaya inay rusul yihiin, mucjizaad. maxaa lagu soo diray rususha? alkitaabu waalmiisaan baa ilaahay tilmaamay. kitaabka iyo miisaan nolosha lagu miisaamo. casrigan dambe dadka waxaa aada uga lumay miisaankii nolosha gebigeedba. haddii bulshada waxay wax ku qiimaynaysaa uu lumo, mafaahiimtu ay qaldanto, noloshoo dhan baa qaldantaa. dadka waxaa ka qaldamay xaqiiqatu dunya maxay tahay, adduunku muxuu yahay, dadnimadu maxay tahay, insaaniyad iyo bini aadamku muxuu yahay, way luntay. waxaa dunida hogaaminaya wuxuu filosofkii faransiiska ku tilmaamaya nidaam tafaaha. faransiis oo filosofa kanadiyan u dhashay ayaa kitaab qoray la yidhaahda nidaamu tafaaha, nidaamka liidashada, wax la-aanta. yacni dunida dad madhan baa hogaaminaya buu leeyahy. waa nidaam madhan. taafihi waa shayga xaqiirka ah, waa nidaam xaqiiroo liita. nidaamkani wuxuu lumiyey markaa dadnimadu maxay tahy, maxaa wax lagu qiimeeya. wuxuu dadka u raray in madaahirta, muuqaalka in wax lagu qiimeeyo. dadku u wada mashquulsan yahay, wuxuu ku mashquulsan yahay qurux wax la yidhaahdo. qof isqurxiyey, gabadh isqurxisay, quruxdii dunida loo lamayo. markay bini aadamka dhaafeen bay xayawaanka loolansiiyeen. nimanka gaaleed agtooda maanta shooyaal la qabtaa laleeyahy rida dunida u qurux badan. markaasaa niman soo fadhiisanayaan oo sifaynayaan, indhaheedu say u eg yihiin, afkeedu siduu eg, waa ri. yani waa markay noloshu wixii wax lagu qiimaynayay uu lumo. noloshu muuqaalka maaha, sidaad u eg tahay ma aha. inaad madowday, inaad caddahay, inaad fool xuntahay, inaad fool xumayn ma aha. walidaalik ba anas ibnu malik wuxuu leeyahy waxaa jiri jiray saxaabadii nin ka mid ahaa oo la odhan jiray zaahir. saxaabiga kan zaahir la yidhaahdaa, zaahir ibnu lxaraam, wuxuu ahaa baa la yidhi nin aada u fool xun. marka quruxda iyo waxa bini aadamku ay sheegaan, nin aada u fool xun buu ahaa oo reer miyiya. nebiga calayhi salaatu wasalaam buu baadiyaha intuu ka yimaado hadiyad u keeni jiray. nebiguna magaaladu kasii taakulayn jiray oo ka diri jiray. walidaalik buu nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi, ina zaahiran baadiyatuna wanaxnu xaadiruun. zaahir waa reer miyiga yagii, annaguna waxaanu nahay reer magaalkiisii buu nebigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam. maalin maalmaha ka miduu zaahir magaalada yimi. nebiga calayhi salaatu wasalaam hadiyadu keenay. isagoo wixii uu sitay suuqa ku iibinayo, suuqii wax lagu kala iibsanayay jooga, ayuu nebigu xagga dambe kaga yimi. isagoo sii jeeda buu sidaa u qabtay nebigu, waanu sii jeedaa. ninka reer miyigii markaa wuxuu yidhi, war isiida, waa kuma? ma arko markaa ciddan haysa ee xagga dambe ka haysa arki kari maayo. isiiddaa markuu ku celiyey, isagoo aan arkaynin, arsilni uu leeyahay, ayuu hoosta ka jalleecay. dabeetana wuxuu arkay inuu nebigi yahay calayhi salaatu wasalaam. markuu gartay inuu nebi maxamed yahay buu isku naba. markii hore isiiddaa buu lahaa, laakiin markuu ogaaday inuu nebigii yahay ayuu isku nabay. nebigu isagoo kaftamaya markaasi, waa kaftami jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam, walaa yaquulu ila alxaq, waxaan xaq ahayna kuma kaftami jirin. isagoo haya buu nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam, man yashtari hada alcabd,
وردون كان يجيب سنة يبو نبي لي سوق بين احتاجين حاجة ضموك هيا وها أدون إلهي تذكرني نبي يقول أنتوا قبطيبوا حولي من يشتري هذا العبد أدون كان يجيب سنة زاهر بن نبي يقول جوابي مكة يا رسول الله إذا والله تجدني كاسدا إلهي رسول كيسيا والله كنارتي وأكو باري يا أبوي حتى هذا أنا لابد من السوق اللي جايب سوي way baarixiyooday ama way baariday ama way ku dhacday ama waa igu fadhiisatay baasay dadku yidhahaan soo maaha alaabaa keeno way igu fadhiisatay waa kaa bixi weyday wuxuu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyow ilaahay baan ku dhaartay haddaad aniga suuqi geyso waan kaasid baan kugu noqonayaa buu leeyay waa kugu baariya nabigu calayhi salaatu wasalaam wuu jawaabo wuxuu ku yidhi laakiin cinda allahi lasta bikaasid ilaahay agtiisa mid kaasida ma ku tihid buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ilaahay agtiisa mid baariyaya ama mid ku qiimo liita ma tihid buu leeyay riwaayaadka qaarkoodna anta cinda allahi qaalib buu yidhi ilaahay agtiisa qaali baad ku tahay qiimaad ku leedahay xadiidku shamaa'il almuxamadiya ayuu ku qoray waana xadiis saxiixa muxuu tilmaamaya xadiidkani inaanu muuqaalka qofka bini aadamka qiimiisu ahayn dadku maanta maxaad ismarisay iyo maxaad xidhatay iyo maxaad kriimkaad soo isticmaashay iyo baraandkeebaad xidhan tahay maryahaaga ma nike ba mise waa heblaaye mise waa buuma waxaa laga fakerayaa muuqaalka iyo jirkaagu siduu u dhisay iyo midabkaagu siduu u eg yahay waxay yidhahdaan dhallinyaro badan ba hadda facebook iyo waxa la midi waaleen waayo mid baa photoshop intuu galo oo gacantiisa wax ku sifeeyo ayuu odhanaya halkaasaan joogaa markaasuu kanaan halkaa joogin niyad jabaya kanna waa been meeshuu sheegayaa waagii hore waxay yidhaahdaan qofku notebookiisa waxa uu qorto sir bay ahaan jirtay mudakaraadkiisiiyo wuxuu rabi jiray markuu dhinto iyo meelaha in la akhriyo iminkana qofku wax kasta u qoro intuu meesha ku soo dhigo like-ba layma saarin buu leeyahay lama akhrinin yani nolosha wixii lagu qiimeynayay baa isbedelay oo tawaafihdaa noqday nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay ruba ashcaf madfuucin bilabwaabi low aqsama cala allahi la abara ruba ashcaf la arkay ama badana ama yaraka doontaba dhoo mid ashcafa mid basaasaysan aan feedhnayn oo madfuucun bilabwaaba albaabada mid laga celiya ah aan manaasib iyo magac iyo muuqaal weyn iyo waxay dadku qiimeeyaan aan wadanin laakiin ilaahay agtiisa maxay ka ah low aqsama cala allahi la abara ilaahay hadduu ku dhaarto hadduu yidhaahdo wallaahi saasay noqonaysaa ilaahay uu rumeeyo siduu u dhaartay looga dhigo u fiirso qof markuu dhaarto ilaahay uu rumaynaya dhaartiisa oo sidii ay noqonayso ilaahay agtiisa qiimuhu ku leeyahay intuu leegyahay laakiin cinda annaas wuxuu nabigu ku tilmaamaya inuu yahay madfuucun bilabwaab albaabada mid aan laga furin mujtamacii muslimkee hore aragtiday nolosha ka qabeen markay kaa ahayd bay xadaarad dunida keeneen markaasay horumar keeneen markaasay dunida hormood ka noqdeen markay ku dhaqmayeen inuu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam in allaha laa yanduru ilaa suwarikum walaa ilaa amwaalikum walakin yanduru ilaa quluubikum wa acmaalikum ilaahay muuqaalkiina ma eegayo maalkiina toona taasi alle agtiisa waxba kama aha kan foosha xunlaya kan quruxda badan waxa oo dhan waa sancadii ilaahay midna adigu maad samaynin marka sidaa u egtiin xoolahanina waa xoolihii ilaahay aad dunida ugu timi cirka kamaad keenin adigu meel cusub kamay soo bixin meelahan umaad ka soo ururisay waxaad xoola haysataan iyo muuqaalkaa leedihiin ilaahay agtiisa waxba kama aha buu nabigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam ilaahay se muxuu eegaa agtiisa qiimo ku leh quluubta waxa ku jira caqiide iyo iimaana iyo ilaahay weynayntiisa ah aliimaanu billahi wa bilyawmi alaakhir quluubtiina waxa ku jira iyo dhaqankiina waxa idinka soo fulaya acmaala idan ayuha alaxiba المعرور بن السويد كان لا يرادا وحو ليه waxaan la kulmay saxaabigii la oran jiray Abaadar
oo rabada tuulo yaro u dhow madiina degan oo isaga iyo nin u shaqaynaya midba xulla xidhan yahay xulladu waa isku joog riwaayadka qaarkoodna waxay idhaahdaan xulluu kala qaybiyo kana qayb buu xidhnaa markaasuu ninkii wuxuu leeyahay maad isku joogga adigu isku xidhatid ninkan shaqaalaha intaad nus siinayso calaa kulli xaal meesha waxaa ka muuqata abudar iyo ninkii u shaqaynaya oo isku mariya sita innagu dee shaqaaluhu waa miskiin yar baynu ka dhignaa hayliyo xidhan ninka guriga lena wuu xaragoonaya laakiin abudar isaga iyo shaqaalihiisaba isku wax xidhan dabeetana su-aal baa la weydiiyey maxaa dhacay baa la yidhi adiga iyo ninkii kuu shaqaalaha laydima kala garan maayo isku mariya sideetaane abudar baa ka jawaabo wuxuu yidhi nin baanu beri ismaagno aan caaye dabeetana hooyadii baa ku caaye waxyo hooyada madoobe dhashay baa ku yidhi markaasuu nebigu wuxuu ku yidhi yaa abadar acyartahu biummi waar abudarow ninkan ma hooyadii baad ku ceebaysay innaka mra'un fiika jaahiliya buu nebigu yidhi waxaad tahay nin weli dhaqamadii jaahiliyada wax ka haysta halkii lagula rabay maad soo gaadhin buu nebigu abudar markaa u tilmaamayay miisaankaad wax ku qiimaynaysaa weli madow iyo caddaan iyo xoolo iyo waxa kana waxaan ilaahay agtiisa wax lagaga qiimaynin sida daraaddeed buu nebigu wuxuu ku leeyahy innaka mra'un fiika jaahiliya waxaa weli kugu sugan wixii qabla alislaam dadku ku dhaqmayaan wax ka mida war dadkani buu nebigu ku leeyahy ikhwaanukum khawalakum jacalahum allahu taxta aydiikum waa walaaladiin oo ilaahay gacantiina soo geliyey ee ninkii walaalkii uu la joogo shaqaale u yahayow falyuطcimhu mima ya'kul waliyulbishu mima yalbas war waxaad cunayso wax ka mida isna sii hambada ha siine waxaad cunayso wax ka sii waxaad xidhantayna wax ka huwi waxaanay awoodi karinna ha ku kallifin haddaad waxaanay qaban karayn inuu dirtana adiguna la qabo nebigaa sidaa igu yidhi buu yidhi xadiiska bukhaari iyo muslim ku yaalla idan waxaan leenahay miisaanka wax lagu qiimaynayo ma aha madaahirta kaa muuqata maradaad xidhan tahay iyo sida muuqaalkoogu u eg yahay iyo gurigaad ka soo toostay intuu leeg yahay iyo waxaad qiyaastaa nebi maxamed oo gurigu ku tukanaya uu ku jiray isaga iyo xaaskiisu ay ku jireen markuu sujuudayo oo cagta ka qajidhan iyo cagaa ka laabanayso waa meel aan laba qof wada mid tukanaya iyo mid hurda wada qaadin ayay u muuqataa innaga qol fadhaa la yidhaahdaa mid hurdaa la yidhaahdaa mid soogal baa la yidhaahdaa mid waa lagu qubaystaa mid waa lagu waxaa laga yaabaa ka innaga musqushayno ah inuu ka weynaa guryihii saxaabada haddana kuwaasay ahaayeen kuwii dunida wax ka bedelay sida awgeed miisaanka dadka lagu qiimeeya ama nolosha lagu qiimeeyo ma aha inta aad adduun iyo xoola haysato su-aal labaadaan keeno saxaabi baa jiray julaybiib la yidhaahdo julaybiib waa tasghiiru jilbaab julaybiib waxay yidhaahdaan nin gaaban oo fool xun waan xoola haysan buu ahaa yacni wixii dadku ay wax ku qiimaynayaan qurux male dharar ninna le ma aha hanti nin haysta ma aha saasay ku sifeeyaan julaybiibkii nooca ahaa buu nebigu ku yidhi war maad guursatid julaybiiba maad guursatid markaasuu yidhi oo yaa aniga gabadhi siinaya yaa gabadhi siinaya nabiga calayhi salaatu wasalaam madiine saxaabada joogtay cid waliba waxay jeclayd inuu nebiga la xidido oo gabdhaha reeraha soo koray nin waliba wuxuu jeclaa inuu nebiga kula xidido dabeetana reer ansaartii ka mida buu nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam maalin yaa fulaan zawijnii ibnatak hebelow inantaada ii guuri ama inantaada isii haddaynu tacbiirkeenna inagu isticmaalno inantaada isii buu ku yidhi wuu farxay ninkii nebi maxamed oo gabadh ku weydiistay nacam wa nucmaa caynin buu yidhi haa yani waa ku siinaya waaba nucmaa cayn waa mid ili ku doogsato in nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam xididnimadiisa aada hesho dabeetana nebigu ninkii wuxuu ku yidhi innii lastu linafsii uriiduha
أنا أقول نفط إذا ودوني ما يبغي النبي عليه الصلاة والسلام قبل دواك هدوني لكن أنا أقول ما هي قفك نفتي سودوني قال فلمن وهذا إلهي رسول كسي ويا الله ربط أبوك يدي قال لي جليبيب بن نبي جليبيب أنا إن أنت ودوني نينكي مركز صدبه يرى فريست دبت أنا وحول إلهي رسول كسي دبل إن أنت هو يداد على التشظى إن أنت هو يداد على التشظى إن أنت هو يداد باللوتبي وحكوا لي النبي محمد بقى إن أنت ينقى صوت دورك هي أنا سيدي سلك بيتني نعم ونعم معي مركز يقول لفيه سودوني ما ينبغ عليه الصلاة والسلام مركز سيتي فلمن يريدها هذا أنت ينوي دينيا وحلو يروحوا إن أنت ودونيا لجليبيب نينكي جليبيب لورنشري أي قبل اللو دونيا إسلامتي وحي بلوضي حلقة بيتي حلقة ومن حلقة وحيرستي وباية يوكالي شباية يهوغي إذا سمعلو تناهدو كالوية إسلامتي ورانا يدو فيلي نمبا ألي جليبيب بي مركاكو حكسيسي باية يما جليبيب بابا مانتا لا يوضع بي إسلامتو ليضا وابدارت لا لعمر الله لا أزوج جليبيبا إلهي بان كل دارتي جليبيب أنو قبر اسكسين ما يبا إسلامتي وبود odaygii de islaanta warkeedii aragay markuu isiri kac ayaa gabadhii hadashay oo xagga dambe fadhida hadasho waxay tiri man khatabani ilaykuma oo yaa ikiin weydiistay waxa lagu yidhi ilaahay rasuulkiisa waxay ku tiri oo ilaahay rasuulkiisa warkiisa celinaysaa inta nabi maxamed idin yidhi gabadhi siiya ayaa odhan doontaan ku siin mayno idinku nabiga igu wareejiya waxaan hubaa inaanu nabi maxamed ay dayacin bay tiriyeen idfa'uni ila rasuulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fa innahu lan yudayyani nabiga igu wareejiya bay tiri nabigu i dayici maayo odaygii iyo islaantii bay inta warkeedii waa ka farxiyo waa aqbaleen dabeetana nabigii buu u tagay calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi sha'nuka biha fazawijha julaybiba abadhi waa ku siinay ilaahay rasuulkiisiiyo wey u guuri julaybiib iyo cidda addooniisaba nabigu calayhi salaatu wasalaam julaybiib buu gabadhii u guuriyey riwaayaadka qaarkood waxay tilmaamayeen inuu duceeyey waqti yar kadib baa dagaal dhacay dagaalkii bay muslimiintu galeen dabeetana waa la islaayey dad muslimiina baa la dilay markii dagaalkii dhammaaday ee cid waliba meydkeedii urursanaysa iyo dadkii maqnaa la tirinayo ayuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam tafquduuna min axad waar cidna ma idinka maqan tahay waa la isbaadhbaadho kolba hebel baa maqan hebel baa markii dambe waxaa la yidhi cidima maqna reerihii magaca lahaa dee raggoodun baabay tiriyeen dabeetana waxaa la yidhi cidima maqna nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi markaa lakinii afqidu julaybiiban waar anigu julaybiib baan la ahay buu nabigu yidhi ninkani ilaahay rasuulkiisa qiimahaasu ku ag lahaa inuu u guuriyey maantana marka la dad tirsanaya ayaa geeriyooday reer waliba leeyahay waa joogaa raggayagii nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay anigu julaybiib baan la ahay ee fatlubuuhu fi lqatla bal dadka la dilay ka baadi doona julaybiib baa la baadi doonay waxaa la helay isagoo isna dhintay oo la dilay 7 gaalna ay ag yaalliin 7 dilay markaasay yara dileen aakhirkii أقتل 7 ثم قتلوه هذا مني وأنا منه بنبي عليه الصلاة والسلام ما تدبوا دلي مركاسي دلين بنبي كاسي هذا مني وأنا منه بنبي لي كاسي أنو يجي ترسني هاي أنا يسقى ترسني كاسو نبي ترسني يا أولي يسقى قاح بعمري وفلح يهي وجابين يهي هنتم ملائيو nabiga hagtiisa waxaasimaha wuxuu ragga ku qiimaynaya raggu tirsanayo ee uu baadi goobayo muuqaalkoodu siduu ekaa iyo gaabnidoodu intay leekayd iyo hantiday haysteen intay leekayd maaha wuxuu wax ku qiimaynayay u fiirso ninka nebi maxamed ku leeyahay hada minni wa ana minhu 7 jeer buu ku celceliyey bay riwaayaadka qaarkood leeyihin
dabeetana madaxuu gacmihiisa u dhigay intii laga aasayay nebi maxamed baa madaxiisa hayay sariir kale iyo rarab kaloo loo dhigay ma jirin ee gacmaha nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam baa lagu hayay intii godka loo qodayay ee la aasayay oo dhan ilaa uu qabriga ka dhigay nebigu calayhi salaatu wasalaam ayuha alaxiba waxay tilmaamaysaa xadiiska imaam alalbani baa ku soo arooriyey saxiix aljanaa'iska imaamu axmed iyo ibnu xibbaanna waa soo saareen aslu lqisana saxiixu muslimkay ku taallaa waxa uu tilmaamayaa nebiga raggu qiimaha agtiisa ku lahaa noocay ahaayeen iyo ragga wixii lagu qiimeynaya wuxuu ahaa mawaasiintu way qaldantay iminka aad bay u qaldantay waayo dadka waxaa lagu qiimeeyaa jaahiisa mansabka uu haysto waa caaqil waa sulطaan waa wasiir waa madaxweyne waa agaasime waa cornayl waa janan mansabka uu haysto ama jaaha uu leeyahay oo odaygii hebel laakiin raggu nebi maxamed agtiisa kaa kumay qiimaysnayn isagoo fadhiya nebigu calayhi salaatu wasalaam oo nin la fadhiya qola soo martay nin baa soo maray markaasuu ku yidhi ma ra'yuka fi hada war bal ninkaa ka warran nin meesha maraya ninkii warbixintay ka bixiye waa maxay ma taquuluuna fi hada buu nebigu tilmaamay ama ma ra'yuka fi hada waxay idhahdeen rajulun min ashraafi innaas waa nin dadka mudan ka mid ah waa nin bay yidhaahdeen hadduu hadlana waa nin la dhegaysto hadduu gabadh ku weydiistana waa nin la siiyo hadduu erge kuugu yimaadana waa nin ergadiisa la aqbala bay yidhaahdeen ninkani annaga agtayada saasuu yahay bay yidhaahdeen wuu iska aamusay nebigu calayhi salaatu wasalaam mar dambe ayaa mid kale soo maray markaasuu ku yidhi ma ra'yuka fi hada bal kanna ka warran ama ma taquuluuna fi hada kan ma isaga maxaa odhanaysaa waa idha hada rajulun min fuqaraa'i lmuslimiin kani waa mid wax mahaysatada muslimiinta ka mida bay yidhaahdeen waa nin hadduu gabadh ku weydiistana aan la siinin hadduu erge kuugu yimaadana ergadiisa aan la aqbalin waa wixii ay kii hore ka sheegeen cagsigiisi bay kana ka sheegeen nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiidku bukhaari ku yaallaa labadaa nin dadku laba miisaan bay kala saareen mid miisaana bay saareen ashraafu nnaas inuu ka mid yahay waxay saareen inuu yahay nin loo guuriyo hadduu gabadh ku weydiisto oo hadduu hadlo nin la dhegaysto oo hadduu erge kugu yimaado nin ergadiisa la aqbalo ka kalena waxay saareen in masaakiinta fuqarada muslimiinta ka midoo aan waxba mudnayn dadka agtiisa aan waxba ka ahayn nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam agtiisa siday ka yihin nebigu markaasuu wuxuu yidhi hada khayrun min mil'i lardi mili hada kana idinku idinla liita ayaa wuxuu ka khayr badan yahay dunida muggeedoo kana ma aha kan baa kan ka khayr badan waxa weeyaan dunida muggeedoo noocan ah ninkan aad sheegaysaan dunidoo dhan oo laga buuxiyey waxaa isku dhaama nin qura ninkanoo qura dhaama buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam yacni miisaanku ma aha buu leeyahay hadalka iyo magaca iyo mansabka iyo xoolaha iyo waxaanaad sheegaysaan ma aha miisaanku buu nebigu u tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam dadku markay madhaan ee mawaasiintu lunto casrigan aynu hadda joogno feedha buurnidaaba la isku qiimayaa sooma tidhaahdaan waa six back ninkani 6 wasalladood buu caloosha ku leeyahay muruqo iyo siduu u feedha buuran yahay ama uu traininka u cayaaray waa kuu sheekh maxamed qutbi odhan jiray waa cujuul bini aadama buu yidhi waa dibiddada ilaahayna qur-aankiisa wuxuu ku leeyahay kuwa munaafiqiina isagoo ka warramaya waidaa ra'aytahum tucjibuka ajsaamuhum baa ilaahay yidhi haddaad aragto jidhkooda iyo weynida iyo qaabka iyo xoogga iyo say u eg yihiin waxa ku cajab gelinaya baa ilaahay yidhi jidhkooda laakiin weliba wan yaquulu tasmac liqowlihim baa la yidhi hadday hadlaanna warkooda waa dhegaysanaysaa
لكنهم حيين إلهي وقت المامي كأنهم خشب مسندة لوح لتيريي بين لم يديهم بالي وإلهي كتاب كيسي قري لتيريي يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يفكون إلهي وقت المامي يقولفت وينين أنا ألا أكتسقيبك لهي منافق بين قلف وينان كرو قيامها نوى كنبي المامي عليه الصلاة والسلام يأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة قيامها وحلكين يا مدوي وبورا وحوق له إلهي يكتيسه قرب كان يعلم ميسان هبا الليل كان عين تيلكت مركو هري أنا قرب هاي كان على سيقي بقيبيي وبال كان لسوق بال كان ألا أكتي ميزان كيسو معها مركز سالي هذا ربطان وحا أخردان فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا آخر ميزان بقوى الله مصار الله متاعه أيها الأحبة علي بن أبي طالب وحول النبي عليه الصلاة والسلام صحابي اللي رجري عبد الله بن مسعود وقيت كوريو كسوق بنيه أي صحابة يهجين عبد الله بن مسعود ومقشان سما وصحابة علم عنك كواهي لكن مقالها لنا ضروبا ومشردوبا وتمر يربوها دبتنا عبد الله بن مسعود وقات كوريا وحكسو قوينيا أي دودوما دي سير دودوبنا أركان مركاسا الله قص الله فضحكوا من حموشة الساقين أي من دقتها الدم دودوبني دي سهرقي بركو غصله نبي عليه الصلاة والسلام حويدي ما تضحكون ورمحكوا غصل ليسان للرجل عبد الله أثقل في الميزان من أحد صحيح الأدب المفرد هو أدن كايرة في قرية أكو قصة شاب النبي قولي إلهي أكتي سبور توحد وكعلسيه وبورنا أنا أحد لا يراهضه ومدينة أكتي قطالة بور توحد إلهي أكتي سوحا كعلس النبي قلت الماما يا محي رجل عبد الله أدن كولي هي عبد الله بن مسعود أيها الأحبة قيمهم معها أبترسينت يرير كان على سيدي مقعوا لهايين رير هبل مان والله عندنا وقال ذا كان الشيء تربضنا فربضا أيام النهي إلى هيك تسوح بك معها ضدك يا نصب في عناء نبي محمد سوى معها هذا النبي محمد ضدك نصب في عن أي إلهي كي أديرك هي لنا شيء تبت يدا أبي لهب وطب ما أغنى عنه ماله وما كسب أدون نصب واحتر أيه أبي لهب واحتر إلى هذا صحيح ما هذه ريربان هذا شيء ونين هاشمية أو قريشة أو كنانية مضر كواب ترصد والله يقارنه ابن كثير وحليه بلهب وحلوه بحيبة وضاء دلالك وجهيس iyo quruxda daraadeed ayaa loogu bixiyay buu leeyahay marka horeba laakiin quruxda iyo dalaalka iyo reerka uu ka dhashay waxba ma ytarina ilaahay wuxuu ku tilmaamay subhanahu wa ta'ala tabbat yada abi lahab wa tab gacmaha abi lahab hoogay ya abi lahab hoogay ba ilaahay subhanahu wa ta'ala ayuha al-ahibba إلهي وحين لي سبحانه وتعالى إن آدم كان أبوري أنا شعوب يا قبائل كدقي شعب كلا قدسن كوين دير كوين دواوين كوين دا جحجحا أنا صاوى أبوري بإلهي لي وخلق الله عندنا يدو اسمي سمينين وسيدوني سمي سمينين وإلهي سنعديسي لما أنتود قبائل كدقي محال الله كدقي يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا بإلهي marka hore aabiyo hooyo quruma ku abtirsataan ama indha waaweyna ama indha yar yarow ama cadaa waha ama caynkana haw asal quruma wada leedii
عد مالك على لقى كيني ما جرتو عد مالك على كتمي ما جرتو أسل كلية يا ودليدين با إلهي لي سبحانه وتعالى أنا شعوبية قبائل إذن كدقي محل إذن كدقي با إلهي لي لتعارف الناس كو قرطان أنا ترى نين رير هبل وين هبل واقع تذكرنا ما هداي مid qura wada ahaan lahayd ma bayna kala garanay laakiin waxaynu ku kala garanay inay reer kala yiin iyo magacyo kala leeyihiin iyo midab kala leeyihiin waa lil ma'rifa li ta'arafu balay amma markay noqoto qiimo markay noqoto inaynu miisaanka dadka saarno maxaynu ku saarayna maqaladu ka dhashay maynu cadiyay maynu madowiyay maya ilaahay wuxuu leeyahay inna akramakum 'inda allahi atqaakum وحيدين كل شرف بدن بالليل الكريم ابن الكريم وحا أكرمكم عند الله الأكتي سوى حيدين كم مضن إذن كم ماموصا كينا لو وعبس بدن مركز إلهي ولبوح لي إن الله عليم خبير إلهي ومد وحق وقال بدن وخبرت بدن ولبا إذن كلا قرنا إياه الأكتي سوى حكي شوكتان أيها الأحبة نبي عليه الصلاة والسلام قال أنتم ما كفرتي ما قريش بدقنيت ودتك إسكوينين السي وورك السي وين دتك حرمك الله دورتي يهين وحتى حجك دتك هلكي وكسو وعنا يعرف دي اللي تجي يدا نقو مني قوليا هلك دتك كلا تجي أنا هلك سكاي وما نقص الله بنا حرمك كما بحنو أي النبي محمد الله عليه الصلاة والسلام مركو فرطي وحول يا أيها الناس إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وتعاظمها بآبائها وارتضوا النبي عليه الصلاة والسلام إلهي وحوينك كحي كبرك يئس لوين دي جاهل لماذا يا أبا كفانكي فالناس الرجلان تاسوا وحي جاهلية والله قبحي تدقوا والله أبو النبي عليه الصلاة والسلام مثل حد ما تشيروه تدقوا والله ولا بديه رجل بر تقي كريم على الله مدسم فلا والله كدور صدا وإلهي أكتيس الشرف كله كريم على الله مدواكا ككلنا وامحي وفاجر شقي هين على الله بالنبي متفاجرة أو حمى السماين بدن شقية وهين على الله إلهي يكتيس كليته إلهي يكتيس مقعية ما مصطنع كلهاي والناس بنو آدم وخلق الله آدم من تراب حقا أبترك هدين الله يدنك يا جنا دي آدم بكا وضعت ما دين آدم نردوبا لك السماء النبي عليه الصلاة والسلام دي أبتركين اللي يغانا نوع ساودتين هدي قيمهين اللي يغانا لبضا سنباتين صفة كلمة جرتو رغان نماضو وحلقو قيمة يقفكو انتو دينتي سحيستو وحلقو قيمة انت آني مغرياتكو حيابها بنا آدم كقدية انت آني قدنين صدر أدد بإلهي وحلي من المؤمنين الرجال ومن انت الرقبة كمدة الرجولة دانين الشيء يواكوه صدقوا ما عاهدوا الله عليه وحيكرون شيء بلنك إلهي وقاده لا إله إلا الله محمد رسول الله مركة هذا بلا بادقش وقوة بلنك كرون شيء رب إليه سبحانه وتعالى فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا قارنا ساسي كو غيريودين قارنا جدكay hayaan buu alla leeyahay subhanahu wa ta'ala raganimo wata dadka ilaahay agtiisa ku sharafta leh xagee laga hela xagee joogaan ilaahay wuxuu leeyahay fi buyutin adina Allah an turfa wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asali rijal kuwa karimeesha laga helaa وقريها إلهي سبحانه وتعالى قريها ربي لها الله كوريالو وإلهي سبحانه وتعالى هلو حسابك عيسى هلو كوريالو كوا كو كوريالا يا وأيو
يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال فاعل غدق رجال با إلهي والتصبيح قال إن هوريا قال إنت بابا رجال كان صفاته محيتي لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله إلهي ويندي سيعب سديسة كما مشغول الصهم بالبركة أدونكو تجارة يا وحيبسك يا وحكا إنه عكسك واربر صلاة هيدا بيسورتا وحي دافا يا بعد ذا فرصة ويني لكن كوا كان إلهي وحكو سفين أين يهين محي الدنيا ما مشغول السبع إلهي لي بيع هي التجارة كما مشغوليا إلهي حسكي هي صلاة وبستيدة هي الزكاة بحستيدة وايو يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار أيها الأحبة والرق دال كودو يهي إني حق اللي وعررا أدونك مركا لقا ورما يوحى لني فامشوا في مناكبها اسكا صعدوا إلهي أرساق دي سرات سيدا بالي أما حق الذكر القرآن مركو كورما يو وسابقوا يصارعوا فاسعوا إلى ذكر الله وأرضى ففروا إلى الله حق عبادات كي الدين تمرك لقا ورما يو قرآن تعابير تا أرض واستعماله يدقدق ورك حق كان ماشي ربان إنه هرو قادان أي تحي أما أدونك مركي شوكتو فامشوا في مناكبها بالليل اسكا صعدا ورق إلهي كنت المام يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله يا إذن مشغولني يا إذن مشغولني عروري يحول يباب كان إلهي حسكي يا إذن كمشغولني با إلهي كنت المام المال ما كم بدون يبقوا حكوا إلى الصحابة استحيوا من الله حق الحياة إلهي كحشود حشودك وحق ليه قال يا رسول الله إنا نستحي والحمد لله وارك حشودان الله بين إلهي رسولك سيو إلهي بانا مهضا اسكاله قال ليس ذاك أنا وارك الشيء يا كما هب النبي لي ولكن الاستحياء من الله حق الحياة حشودك أن تلمامي إلهي حق ولي لقى حشودا وكم النبي لي أن تحفظ الرأس وما وعاه مضح يوحو السيدة إنا دلالسه مدح محو السيدة دقو اندو عرب سن وحبو السيدة كوا إنا دلالسه حارانتك إلى السيد دكتادية إشادية أفكاقية وحاقاس إنا دلالسيد والبطن وما حواه على لي يوحي كوريكسن قلبي وطنا يوحي لم يدبا إن هذا الالسه وحكى لولدي ولتذكر الموت والبلا وإن حصوصته جيرده يا بابا حبالنا تجلس أدونك وما الماء ير أدو كوبان ومالمو hadba maalinta joogto baad la nooshay dareemadeeda qabta laakiin shalay dareemadii ha kugu soo noqon maaya ma bayna noolaaneen wixii maalmi horeyna soo maray hadaynu wali dareensan oo wixii mashaakil iyo caro iyo dib iyo wareer kugu dhacay haday kaaba tagi waayaan saacad kasta xasuusanayso wad waalan lahaydba laakiin waa ilowna wixii shalaynu soo maray wuxuu doonaba ha noqdee maalinta aad joogto markaasi uun baad la warwar tahay haddaba xasuusta baa la yidhi geerida iyo baabaa dambe waman araada alaakhira taraka ziinata addunya baa la yidhi innagu waxaynu u dhimannayba waa quruxdii adduunka warninkii aakhira doonaya tan dhaldhalaalkeeda waa iska ilaabaa buu nebigu leeyahy ninkii aakhira doonaya dhaldhalaalkeeda waa iska mubaax haddaanay xaaraana ku jirin laakiin maca daalik ده وحي عمرك يا وقتك لو بخين لها ماها سيدا وقيد بنبي وحط الماما ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة نك السيدا يلبو نبي يري ورنك أصار ربك حشودي
حشوتكم ربي حق لها سبحانه وتعالى. أيها الأحبة، رقوك ين النمضة يضد نمضة يا إنسان النمضة. عيشيغان عمر بن الخطاب والرجل فرديا مالي وحكودي تمنوا قابلني ولو بوح يدي ديلو حاد شعلان لهاyd midba wuxuu yidhi waxaan jeclaan lahaa gurigan muggiyo dahaba intaan helo inaan ilaahay jidkiisa u bixiyo. horta u fiirso saxaabadu say fakarayeen raggaas wakhtigaa noola maaha intaan helo inaan fooqaqa dhisto ee wuxuu leeyahay intaan helo inaan xaggee qabadsiiyo ilaahay dartii inaan u bixiyo. cumar baa haddana ku celiyey tamanow bal ku noqda mar kalena hadda waxaa jeceshii sheega. أتمنى لو أنها مملوءة لؤلؤا وزبرجدا وجوهرا أنفقه في سبيل الله وأتصدق به بعد غيره. ويحيون بيسي بديين ذهب قرأ إنانو نغني بريشيا سيستون سكوردن لك حتى نقالي وتربضا وأنه إلهي درته بحن بيلي. ثم قال تمنوا وأن هذا نبو يربى كل نغضة. قصة إمام الحاكم بس أرورين هي مستدرك كيس السنة كذا نروح حسن بيع علماء دوين هذا كون نقطة بيجي بل هذا مرك عليه واحد هذا نقرن بين أمير المؤمنين وحكى له أنه يدي الدين لأنه عمر وحيدي ولكني أتمنى رجالا مثل أبي عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل وسالم مولى أبي حذيفة وحذيفة بن اليمان فاستعين بهم على علاء كلمة الله. أنا وحن رجينا يا وحن تمنينا يا أبو لي هي أنا ورق ما دمها وحن ربا أبو لي ذهبي يرك حني يو وحن ماها وحن دون يا أبو لي إنه وحن أنا أدينا قال الله هلا نلا شو في عنان لك ورد الرجل هلا بين نلا شو في عنان سه رجع نقالها سمية وحكرت شيء ضد مركات هالشو أيات هرو مرقاده dhaqaalo qudha hadduu yahay dadku waa ku baaba'aan. muslimka ayaa ka dhaqaalo badan yaase ka dullinimo badan. dhaqaalay heleen daara cirka ku jiran bay heleen isugu faanayaan daarta dunida ugu dheer baan dhisayaa maya ta ugu ballaadhan baan dhisayaa mee magaalada ugu dheer dunidaan dhisayaa. magaalo iswada daba taxan oo gabigeedu waa intaan oo kilomitir laakiin sidaa u dhisan oo cirka ku tahay. tareen baa dhex ordaya la yidhi 5 daqiiqo koona ilaa koonaad ku gaa waxaasi ka fekerayaan guriga u dheer daarta u dheer magaalada u weyn dayaaradaha u waaweyn. waxaa maaha nolosha waxaa horumariya quality-ga bini aadamkoo la bedelo. dadka mawaasiintooda iyo mafaahiimtooda iyo waxay ka fekerayaan iyo siday wax u arkayaan oo bedelma. nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam shaqadu qabtay waa taa muu qabanin inuu yidhaahdo barwaaqo iyo xoolo badan baynu keenaynaa iyo nin walba qasabad caaniyo biyaabaa loogu rakibayaa guriga cidina uguma rakibin. rag bay ahaan maalina wax cuna maalina qada laakiin rag buu sameeyey rag. saa daraaddeed cumar markay qoladani xoola sheegeen wuxuu yidhi anigu xoolo uma baahniye waxaan rajaynayaa inaan helo abu cubaydata bnu ljaraax ninkuu nebigu ku tilmaamaya amiinu haadihi lumma أما معاذ بن جبل وأن دلن يراه نبو قتل ماما يا أعلم المسلمين بالحلال والحرام نك أقوى قوم بدل المسلمين حلال يا حرام. أما سالم مولى أبي حذيفة نك عمر لها دون نولي هاي سجى خليفة ونقل لها مسلمين تا. أما حذيفة بن اليمان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجاس أنا نقول رجين لها بولي قوى سوكلين هلو وأن إلهي درتي واديك سدا مركزية الدين تتنين كوريالا. إذن أيها الأحبة رجال لماذا عمر كلا قيمة بدنيد معدن يا جواهر يا ذهب يا وحل هلو إنك واحد مدوحي نورد منك صورورين إن حول الله هلو نبينا وحط المام إنما الناس كالإبل 100 لا تكاد تجد فيها راحلة. dadkani waxay la mid yihiin sidii geel boqola oo neef la fuulo laga dhex waayay. waa marka la qiimo beelade waa marka rijaalkii la rabay dadka laga dhex waayo boqol halaad oo wax laga fuulo laga waayay ayay la mid yihiin buu tilmaamaya. rajulku kuf ah
أيها الأحبة، ورور أدوم بادتك هيا قري وين ما هيستد لعق بدن ما هيستد وحن مقابن كرتد ونظام التفاهة فيلسوف فرنسي سيدو حشيقة يري نظام كي تفاهد هو شيء تافه ليد الشدة دون إذا كو حول بدن وقطع عيسى قول لي تمانت كو استلك بدن لوايجا كو حشيش لعبك بدن لوايجا كو نلشود انت رالك هاي وايه قف بني آدم oo dhowr boqol oo kun oo dollar intuu isku qalay raba inuu bisad u ekaado miyaad aragtay oo intaasoo qalliina loo sameeyay si bisad loogu ekaysiiyo qof bini aadama miyaad aragtay oo intuu bini aadamnimada raalli ku noqon kari waayay raba inuu ay noqdo xadhig lagu xidho la wato oo afarta adin ku socda qof bini aadam oo sidii ilaahay u abuuray intuu raalli ku noqon waayay yidhaahda qof dumar ah la iga dhigo xoogaaga niga laalaada inta goysaan meel jeexana lay sameeyo qof bini aadam oo sidii ilaahay u abuuray intuu raalli ku noqon waayo yidhaahda labada naas ha layga gooyo nin ha layga dhigo maaha masaakiinta dadka waxaan samaynaya inta badan waa ciliyat alqowm noloshaa dhadhan yeelan weyday macna yeelan weyday waxa istilaa tabaqaadka sare ugu badan yihiin haddii nolosha iimaanku lumo qiimo ma leh qiimo kuu yeeli mayso gacantaada waxa ku jira daar baan leeyo halkaa ka taagan waxba samayn mayso inaad daar leedahay inaad buul leedahay adigu uun baad isma dhaanto laakiin muslimka dhibta haystaa waxay tahay isagii baa wuxuu sii daba socdaa mid isba miisaanku ka lumay indhoole hagaya ka war mid indhala oo shaacankaa leh haddaad tidhaahdo aynu kan daba galno yacni duul nolosha kuleh duul kuleh maa macna alxayaa baa la garan laayay maa macna alxayaa noloshu maxay tahay noolow wax iska cundhimo maxay tahay bay leeyihin noloshu maxay tahay noloshu marka aakhire iyo ilaahay iyo wax ku xidhantay bay macno leedahay laakiin garan waaye wax loo nool yahayba wax meesha loo joogo brofesoraa nin ardayu wuxuu ku yidhi oo muslima ayaa su-aal la soo qaado markaasu wuxuu yidhi waa nin dhareerku ka da'ayo waana brofesor suuraal yaroo jeeri soo qudhumaysta bas wuxuu yidhi war anaa lacag aanan waxba ku falayn oo meel halkaasi ku jirtee ma ku siiyaabu ku yidhi yacni tan aynu inagu u xiqnay isagu waa uu ka daalay waayo wuxuu garan waayey waxay macno samaynayso waxay macno u samaynayso aanu garanayn ayuha alaxiba cahdiga kan dadka majarihii baa ka habaabay markaa darsigeygani wuxuu ku kooban yahay uun war majaru iyo idinka habaabine wixii ugu qaalisanaa baa haysataan oo diin xagga alle ka timi oo hidaayadii rabba haysataane iyada qaata oo waxay idiin sheegayso sameeya oo yaan daarahan iyo guryahan dhaadheer idiin muuqanin wasala allahuma calaa nabiyina muxamedin wacala alihi wasaxbihi wasalam walxamdu lilahi rabbi alcaalamiin